xaflad ballaaran oo lagu biyaaminayay musharaxnimada aqoon-yahan Jamaal Aadan Diiriye oo u sharaxan doorashada golaha wakiilada Somaliland ee dhawaanta la filayo inay ka qabsanto dalka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. xafladan oo ahayd mid kulmisay marti sharaf aad tiro badan oo ka kooban qaybaha bulshada sida salaadiinta, siyaasiyiinta, madax dhaqameedka, haweenka, carruurta, dhalinyarada. xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladii laga soo jeediyey kuwan. runtii waxaa farxad ah golahan waxaa ka muuqda maanta yuhuun aad iyo aad u qiimo badan. bulshana ma horumarto ilaa ay wax isu ogolaato oo siday isu kala horraysiinayso ay isu daba taagto oo ay isbarbaryaacin oo qofka ay wax u gartaan ay sidiisa u dabagalaan u muxuu ahaayey baritaaraan. waxaa halkan ka muuqata in bulshadani ay tahay bulsho iimaan leh, deeqsi ah, wax isu hur leh. taasina waxay keentaa in bulshadaas ay noqoto bulsho ummaddu u aragto inay tahay ummad qiimo leh oo qaaya leh oo wax loogu soo hagaago la yaqaano ayay noqotaa. waxay keentaa inaad noqotaan bulsho isku xidhan oo wax wada leh oo iska warhaysa oo qofkeeda qiimaha lana taqaana ayaa noqonaysa. taasi waxay runtii aan idinku ammaanayaa doorkii ka horreeyey ee la gelayay doorashadii xildhibaanada. sidaas si leeg ayaa isu xilqaanteen, dhallinyaradiinii wax doonaysay baa kala reebteen, timacaddo halka fadhiyaa soo saarteen iyo rag kale. timacadda wuxuu noqday Somaliland ninkii ugu cod badnaa ayuu noqday. taasi waxay ku timid wadajirka iyo wax isu ogolaanshaha iyo wax isu quuridday ku timid. waxaa kaloo aynu soo saarteen Hargeysa xildhibaanada joogo magaalada caasimadda qaranka ah inaad noqotaan kuwii ugu muxuu ahaa xildhibaano badnaa ee koowaad. xafladan qiimaha leh ee lagu shaacinayo musharaxnimada Jamaal Aadan Diiriye waxaa noo farxaday inaan ka soo qayb galno annagoo madax dhaqameedkii reerka ah. waxaanu marka hore ugu ducaynaynaa inuu ilaahay Jamaal xilkaa uu soo doontay la garab galo, in ilaahay ummadda u sakhiro. idina waxaan idinku boorinaynaa inaynu diyaar la ahaano ninka aqoonyahanka ah ee dhallinyarada ah ee la soo xulay inaynu dooranno oo aynaan farta kala bakhiilin baynoo ballanaa. waxaan leeyahay waa Jamaal Aadan Diiriye maanta bulsho ballaaran baa soo xulatay. deegaanada Cadaadley iyo Sabawanaag iyo Hargeysa ayuu musharaxu yahay gobolka Muradjeex. ha loo dadaalo, dhalinyaro iyo waayeelba meesha waa laga muuqdaa. culimmadii oo dhinac walba leh baa ka muuqata oo Jamaal nin dhinac qura ku xidhan maaha, waa nin ballaaran, waa ninkaa kulmiyey ee isu keenay culimmadii Somaliland, waayeelkii Somaliland, dhalinyaradii Somaliland. waxaan leeyahay Jamaal wuxuu sitaa kiishkii kiintaalka 100 kiilo buu qaadi jiray. 95 baa ugu jiray, 5 loogu daro 95 baa ugu jiray. waxaan leeyahay 5 loogu daro. رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة لا هو قبل هذا خير ولا ولا تطبيق بقول العين بعد خير ولا واحد يصير واحد يجعل هذا والباء هذا خير ولا هي ولا هي بقول يا الله هو قبل هذا شر ولا هي كتشي ويوقفك والدين إلا هي وقفك وبده عايزين وحا وصل هذا خير ولا يوافق هذا شر ولا يكتشي ودعاء وفعل اللي بده عايزوي marka ilaahay u taasib u weydiinayna Jamaal ilaahay khayr wala baqul ya ma ilaahay uga baryana. beesha runtii waxaa ka muuqda bisay siyaasadeed say isku ogolaadeen
برجعنا عقل كهذا يي وضيو كيف عقل كهربو كل شيء لبضن اللي ما نسمع عدل كاتم عديو اللي ما تبع على مسار قايس كمارين لكن الرياضي وبدنا كرسي ما تلوه رياضي بدنا كي تيجي كلوسو تاعي والله تفكر الله ولا جلس يدلو فينا وواحد كده شمطة ما تبكي أي نكن دور كيسي تبينا واتراي مرحاتي كان هاي اللي سوت تاعي يا الله سبحان السلام بلانتي مالتي نور دقي رتي وواحد مدن تاعي غيرك أنا كنت إذا بيصير كي واحد سوق العشاء غيرها أما بينها أما الطاير عنده واحد كده حياة ولا جلا وواحد بقول اللي يجيب باله وأنا كم عملية يا تام وحبيت رأيك سلطان محمد هذا يقول سدح تقول شيء بريء هالجيسون شرحية جمال بريء هالجيسون ما صوت طبعا بريء هالوجا بريء هالجيسون وهالجيسون رسول صلاة الإسلام ده وحنا هذا نسكون به على مسار الجمال إنه على مسار إنه نقضه كندري يعني من دون إنه مشرح نقضه مشرح لما هو المسلم عن سينا وحي دنبوه هرسك وحنا يسقى وحنا هرسنا يسقى مترو سوي مسكين وحي تدخل هرسنا إنه ولا نسكون به يسقى وحنا سينا مترو ما نجي هذا وحلوران عدة وحلوران يا وقت أنت هذا السوق تبدي أنت دور يسا إن يسوى شرح لي وحكي دكتور واجبات بوحو سارية هاي أنت قرأتي إن يكاد دكتور وعمل اسمه سوق يوحي سوق بتاعي وحكي دكتور أيو سارية إن كذا بدني وحوي يسقى مركو صوب حبا وحلوران قرأ مشرح ما تشرحني وحلي هاي خلاص هوري وحلي هاي حرقة هوري وجمال هورا الله خشاي سومال لا ودم ما يسوتيبين أما صابر فريسته وحنا صبح الجمال حرقوا ليو حلكي الله دور تبوسك كتبو إذا بوق سومال لا قلبي بوسك كتبي حرقة دار أقول ليه مرة بعد ما نصاحوا لنا ورا دورنا الجمال نيكم مركو يشرحوا نينا واحد يرادا مشرح نينا حد بابا يرادا مش كسر شيء دابا يجا مشرح معها واحد يبان ما تلاقى بلابو ونمكي وحصل شرحي نمكي مقالة هرجيسية دمدا هرجيسة تنادي يقول بدلت كسر صاري أي أسر شرحي منكر وليه حاصل نقل مايو كم وصعنيه وحنيه هاي أنا وحن هبايله هيبا الله هبايه إن شاء الله كمالين تبيه قلها لكن وحن كدرنا قرن كرين وشقيه تنمدين السبونا كرين وشقيه بنتنا والسلام وحن سلام يا مدحضة قيمها له وكوكي هاي حقيها دولة هوسة عصب دليلة حقها وحن كل سلامنا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلك اللي قولي بينه إلى قولي بينه نوع أكسرو تربة ندم كيسو صوفي حي باطحي حلبانك عصب جمال آدم ديري حلبان وسيد هرب الله الشيء شرف يحرقه يقيمه له قفكنا وحنو الله لا بشيء حلبان وحويان حلكن أرجو أوران ما يهتو خير كله يهتو شر كله حلك خير كله ورثو كله سنسا كله إن شاء الله بسم الله الكريم أنتي تعبكي جمال أيضا كمان مكروهين كقيم كل حفلتي ساعة نبغى هولو شغل روحانتي فترني أيام مسجد بالصاحبك مدشي يقول على مساري كم بران أنت بعدي جمال لبار الموت بارهانتي لبدو ما لبار الموت بارهانتي أنو بهانين جمال كحوكينو تكمل هويا جمال الجود عينو حلكا لو إن شاء الله تعالى برلمانك طلباتنا هويا جمال إلا هو قلو سيدي مارتي لو صوت إلى تالف تجدنا هو حير ما هي وحويا نيل اسكو هالين كرنا معها بيشي واني سومال لندن دعوة واني قرب كونين روانتي أيو سمين وميل كستو أو جمال عود كيسو وحنا مسني إنه ميل كستو جمال عود كيلي أنا مسني إن جمال صاحبك وندعنا إن شاء الله تعالى إنه هاي حلكا كاسترو
إن شاء الله إنه نكون كلنا لكن يانو يدي من جماله جمال هم يجيس أدو أقرايو وحياو دوري نفهميو جماله بقص على كرسيا إنه عرق كله وريو كرسيا دنيا بارلو كله أيو جمال جوري أوكا هو يانو يدي من جمال يانو يدي من وانين متمتي سهر كاي تاكسي أي تارين تاي إنه بارلو كتبيو نهو مركا دنيا بارلو كاي عصوب إصوص على أي جمال قدو عنا إن شاء الله تعالى إنه كنا وانكر كهذا هي نوش كيدو إن شاء الله وانين دليرا جمال بتي شغال صوص عتى بعرمان أي ما تو على مسارنا وما هو رئيس الشقاء هراي موسى برنامج شغال فلنتري موسى هي بتي وكبوليس ده وسجى دليرا كلا وفضل وحواليه يورحك بقى أيسوه هي المدة وانين أينان إما كبرنيين تردار قضانا نفسي أو شغله قبل دونه إن الكلام قلنا هو فاهمنا وتيلي حسبية لو بيعت ضيع على جهلنا أنا ولا حسبية لا قال بس ولا شيء waxaan soo dhaweynayaa oo aan hambaryeenayaa mar labaad xildhibaanka cusub ee maanta doonayno inuu halkan xafladan aynu ku soo dhaweyno ama aan u qabanay Jamaal run ahaantii Jamaal intii aan anigu xilka hayay waa dadkii madaliyaradii aan isugu dhaweynay shaqadu inay dhaxaysay waxaana ka marqaati kacayaa in la soo doorto la soo xulay ninkii dhabta ahaa isaguna uu isteeno uu yahay qofkii runta ahaa جمال واحد كلام تقارن كل ميش عطوس وصعطة وشكل كستار قبل هذه الجورالة واحد بدن إيه تدعي بدن ما أنت إيه تدعي بدن إيه واحد بدن قبل يدرون بدن ثاي أو أكل تيم كصاع بكار أيوة مرور بقف كأحد كلا صاري مرة لوران ماي حاك لوران ماي مرور بقف تكيل عناته هؤلاء أنا وتكون تركيسة أنت كلام تبع عدو سوق الهورية ودي سديستين أنت مفروض فهم قناة أيوة رئيسته ومرة بلا رئيسته هذا هو كده الجيزة. waxaan isku nimid waxa weeye inaynu shaacino Jamaal Aadan diiriye xildhibaannimadiisii runtii hore loo shaacinay laakiin waa sii taageedinanaa ugu horeyn waan uga ducaynayaa halkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka uu maanta waxa ka xidhay inuu ku asturo inuu ku guuleeyo kuna asturo kii ummadiisa iyo deegaankiisa anfacana Ilaahay ka dhigo xildhibaan Jamaal anagu aad baan wada shaqaynay waxa ku filan ardaydiisa oo kaliya ku filan Jamaal oo ugu balaminaysa anaga codaynayna midda labaad dhalinyarada mid baan u sheegayaa dhalinyaradu kaarkii may wada qaadanin inay qaataan ma doonayaan waxay yiraahdeen marka la yurub qabla mana farana laga helayo taasi ma jirto nin walba kaarka qaado alla codeeyo Jamaal waxaan leenahay haddaan haweenka nahay waan ku taageeraynaa waan ku diyaarinaynaa dhammaanteen waxaa la doonayaa horta ka horeysa doorashada waxaa ka horeysa kaar qaadashada haddaan dadku kaar qaadanin cidna ma soo saari karo cidna ma codayn karo markaa kaarka hala qaato dumarka iyaga waxaan leeyahay haddii Ilaahay ka dhigo xildhibaan Jamaal waxa weeyaan dhexda ha loo xidho maalmaha doorashada reeraha qadada ha u karanina haddii aan la yidhaahdo aad baan Jamaal ku taageersanahay waan ku soo dhaweynayaa waxaan u joognaa waa caleemasaarka xildhibaanka cusub ee aynu wada ogolaanay dhammaanteen Jamaal oo halkan fadhiya waxaan soo dhaweynaa xildhibaanka Jamaal anigu saakaan ka soo galahay burco marka jidka marayay baa la ii sheegay telefoon kula soo hadlay yaa la yidhi xildhibaankii baa halkan ugu caleemasaaraya marka halkan aan ku soo dhexday inaan kala qayb qaato aan u baarakeeyo xildhibaanka waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu guulaysto waana muuqataa sida ifafaaraha ka muuqata intiina saataa ka shaqaysaan wuu guulaysanaya insha allahu tacaala isaga waxaan la dardaarmi doonaa markuu helo kursiga mari maayo hadalkaysa nuxurka ku jiroon baa muhiima horta Jamaal waan ugu ducaynayaa insha allah in Ilaahay guul u gaarsiiyo dhammaanteen buu matalaa dhammaanteen buu ku turjumayaa dhammaanteen buu taagan yahay
وإنه نقلنا قار عدكونا لعقل جونا لعدودنا بيسوق بإذن الله تعالى يسقى يرجع كلام من دونها إلى نقعد سيرو سيدا يقوم الله يبارك بإذن الله تعالى. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأحبابنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد صلاتينتا عقاشا odayaasha dhalinyarada haweenka dhammaan bulshooyinka halkan isugu timi waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamka bacdi aniga xafladan si gaar ah horta ii taabanaysaa waxa ii taabanaysaa markii muddadii halgankii aan gobonnimo doonka aniga laygu soo saaray markii lagu jiray jamaal wuxuu ahaa ninkii aanu si soo hadhnay jamaal habeenkaa habeenada ka tilmaaman aniga wuu ii cayiman yahay habeenkaas wuxuu ahaa habeen ramadaana oo ay 16 ramadaan tahay marka ay labadii habeennimo maraysay ilaa 30 oday ay fadhiyaan ayna kala saari kari waayeen ee midka qolaba inima ay qaybo mid jeclaatay ee odayaashana waa ku yaraa fadhiirnaa ay yidhahdeen kii daydaga ahaa iyana ka jaamiciga baynu simaynaa ee la ismari waayey jamaal wuxuu ahaa ninkii kacay odayaashu horta waxay nagu yidhaahdeen idin kala saari kari weyno horta dabadda isula baxa markii la yidhi dabadda isula baxa ayuu yidhi jamaal annagu isla bixi mayno dhegaysta 3 qodob intaan isula bixi mayno waa habeen ramadaano waxaynu joognaa labadii habeenimo 3 qodob 3 horta timacada waan ugu daynayaa buuri koow ku iga weeyay buuri oo taa waan ugu daynayaa laba meeshu waa dowlad hoose xashiish baa la kuraya xashiishkana wiga yaqaanaa buuri qodobka saddexaad waxa uu yidhi maadaama ay habeen ramadaan tahay labadii habeennimana aan kala saari kari weydeen taana odayaasha duca kaga rabaa waan idin furanayaa buuri odayaashii way fadhiyaan badankoodii intay wada kaceen bay cumaamadaha saareeno ilmadoodii baa horta qoysay jamaal madaxiisa yacni ducadii habeenka odayaasha ka qaatay aniga waxba duco maan laygama aqbalayne jamaal midh buu codsaday wuxuu yidhi 485 baa imtixaan la gelayaa inaan wanka galuun aniga igu duceeya tiina way dhacdo wankuu gala oo jaamacaddu markaa uu imtixaan galay intaa ka bacdi markay dhacday jamaal horta ducadii habeenkaas buu qaatay ilaa imika horta runtii way shaqaynaysaa aad iyo aadna waan ugu mahad celinayaa howlgalkii faraha badnaa ee kukiya bowda laga jabay dhiigga laga horay aad baan uga mahad celinayaa qaranka ummadda somalilan ha noqoto bulshaweynta halkan isugu noqoto ilaahay baan mahadle iminkana waxaan aniga ay si gaara igu taabanaysaa naf iyo maal inankayga xudhadna haatee hadday jamaal noqonaysa inaan la taaganahay waan ballan qaadaya anugu sidii igu shaqeeyay labalaabkeedna waan ballan qaadaya marka xafladda waxaan kaga faa'iidaysanayaa in aan runtii markii uu yidhi faylku iga yarahaya inuu dimiya kee waa naxo dabadda u baxa oo aad baan u diido xaswaadhihi aad iyo aad baan idiin salaamayaa waktiganay badan baa fadhideen aad iyo aad baa u mahadsantiin soo dhawow jamaalow haddii ay inanka qorod noqoto wax kudhawa ku birinaya inanka markan dardaarankiisa kooban si kooban u idhaa ilaahay waxaynu u baryaynaa inuu noqdo dhiiranaantii cabdiraxmaan axmed cali ee uu inagaga soo xareeyey qaxootiga kow ku dhawaaqistii uu ku dhawaaqay cabdiraxmaan axmed cali jamhuuriyadda somalilan dhiiranaanta in ilaahay siiyo uu go-aankan ku qaatay number 2 siyaasigii maxamed xaaji ibraahim cagaal faxalnimadiisii ilaahay siiyo in ilaahay uu siiyo baynu ilaahay uga baryaynaa madaxweyniheenii ku xigee daahir yaale kahayn nasiibkii uu siiyana alaatiyo oo uu nasiib wanaagsanaadee daahir yaale kahayn
siyaasaddii mar hadduu galay waxaan xasuustaa 3 jeer baan maxamed maxamuud siiraaye ka xasuustaa 3 shay baan ka xasuustaa maalintii aan joognay belegubadnee 99 wuxuu ka hadhay ina uu la tartamo raggii markaa u tartamayay ina xaashiya tuurtu artagno wuu ka noqdo wuxuu dhaanu idinla tartami maaye waan idiin haniyey markii xigtay 80 cod baa laga helo waan aaminay buuri markii saddexaadna iminku ina kala badbaadiyo ninkan baajiiskaga wareejiyey dhiiranaanta siyaasaddaasee wanaagsanna waa ugu ducaynaynaa in ay siri sababtoo waa 3 shay oo qaali ah taana ugu ducaynaya qodobka afshanaadeen ugu ducaynaya quyar socodka cabdiraxmaan عندنا وجود عيني إلى يعني سنة في عنا كل تعب سكت كيني أنا شديني أنا برايا هيني كان وجود عيني معني ما ينانور ما أقول هي أنا يعني قير صعد كوحوي ووح قالع قير صعد كاو 8 سنوات بلا بيت وقت صوب برلمان كقوة ذينا إلى سنة وجود عيني وحلاها أدار ما يباشا برجع الجيسة إيش الرحية حلما سياستي وتليني حسبية يلا تتابعني لكن أنا كل ميل بارجعلي أنا كل ميل بارجعلي كريني لي سياستي يلا كيري بالي لكن ما كري لكن واحد حسوستا بري ما نور ما وين بيرو نقولنا مسوا رامي وبرجع يدتوكي وإنما يربيك بدما markaasaan ku niri tuurtaan tagno gaasaan tagno armay ma wakiil cunayay baan noqonaa duurka waraabi baan cunayay baan goosanaysan waraabaan noqonaa duurka kan dadka cunaya 7 xun baynu ku jirnaayo aad qadhaadh oo qabyaalada aanu aad baan u nacay laakiin qabyaalada ay taacatay bahal qabyaalada baan naftayno keento tiifiyada iyo ilaacadaha waxa waan ka wacdiyay allah qolaa horumarka badan sameysay ilaacadaha iyo websaytada runtii waxaan idinka kula talin lahaa in maarad qabyaaladda inaga yareeya oo dadka ka duubaysan yareeya haddii ka tiri weydaan deeta xusbiyada kala anu xusb baan iska jecloo meelaa intaa waxaan leeyahay waxaan hadalkayga kusoo gabagabayna xalfadeena kusoo xidhananaa jamaal weynankeenii dii waxaa laynaga rabaa musharaxnimadii waynu siinay waan ku hambalyaynayaa reerka isaga soo saaree timxadda soo saaree kala reebo waan ku hambalyaynaya laakiin waxaan leeyahay dee maadi waa meel maadi waxa weeye waa kaarka inaynu qaadanadeeda waynu istaawagelideeda maalintaad doonaysa inuu jamaal soo baxo horta waa inaad kaarka qaadataa diyaargarowda oo istaawagelisadee wixii aad ku soo saarta waa kaas laakiin sidii ay aamini sheegaysay maxaa inaga yurub inaga galay dee ninka haystaan waxaban u aqaana ninka yurub tegey badanaa halkan waxaa la yidhaahdaa qofka aynu yar dhaliilayno waxaynu nahay aboobaad abaaanu muuqun u yahay aboobaad baa la yidhaha anuu markuu ninku yurub tago aboo u maraysa dalkiisi ka tegey runtii sababtoo oo dhib baa taalloo danaanu nahay inuu tago wax badan baa tegatay markaa ka taariibayaan inuu taariibanaa ka kale ee yurub ka yimidna dee dhib unbaa haysto dalkiisii lama joogo walaaladii lama joogo ehelkii lama joogo waa nin dhiba haysata un kolley beredka ka dhacaya waad aragtay iyo kulalka haysan marka waa innaga yurub iyo kaar baa laga arkaya yurub waxba kaama yaaliini jamaal waxaad ku soo saartaa markaad kaar qaadatan la yaray taariirtina way xidhantay waa la nacay lama doonayo nin oona haysan yurub baa tegaysa wallaahi kuwii joogaa ka soo socda oo iskaga imanaya markaa taana dhalinyarta ka waaninaya jamaal waa inankeenii saa u simika usoo doorateen u doorta dhammaanteedna aniguna waan taageeraya waa inankayga aabihii baanu saaxiib ahay sidiina fallaaxa halkii jooga waxaan xasuustaa nuuriyey baan la sheekaystay aabihii iska daayo wallaahi nuuriyey baan la sheekaystoo 120 wax badan baan hayo aan ka sheekay waxaan kusoo dhaweey jamaal salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam kulley hadal laygama tegin intii aad tidhaahdeen buu hadal ku leeyahay waxaan u soo kacay inaan u mahadnaqo dhammaan ummaddan qiimaha badan ee xafladdan igu soo sharaftay
halkan u yimi maanta inay ku dhiirigeliyaan hanka musharaxnimo ee golaha baarlamaanka ee soo socda. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa salaadiinta, cuqaasha, culimada, aqoon-yahanka iyo madaxda kale ee qaranka Somaliland ee waqtiga dheer halkan usoo horay inay maanta oo dhan igala qayb qaataan farxadda iyo dhiirigelinta. waxaan leeyahay waxay igu dhiirigelisay tallaabadii koowaad ee sallaanka inaan tallaabooyinka dambe sii dhammaystiro. aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhiirigelintiinna iyo isgarab istaagkiinna. waxaanan marna ilaawi doonin dad waqtiyo adag igu dhiirigeliyay iyaguna inaan sidan tallaabadooda kala soo gaadho, oo uu ka mid yahay ninka halkaa fadhiya suldaanka aabihii. suldaan barra maanta aan joogin, laakiin joogay maalintii uu tima cadda ka sheekeynayey, ahaa raggii koowaad ila garab istaagay halkan inaad maanta halkan soo gaadho. waxaan leeyahay waxaan adna sii dhammaystiri doonaa tallaabooyinka dhaadheer iyo waddada dheer oo hadhay Somaliland. waxaa halkan midowaa ballanqaad aan siinayo dadka taageerayaasha ka soo qayb galay oo igula dardaarmay xisbiyada siyaasadda ka aynu iska sharaxi doono. taageeradiina ay ku xidhan tahay mid aynu go'aamino ama idinku aad go'aamisaan mooyaane inaanan ku degdegin xisbi aydaan idinku taageerayaashiisa ahayn. taa waan idin ballan qaadayaa. midi ballanqaad runtii noqon maysa, waa isku day. haddaynu halkan gaadhno maxaa laynaga filayaa? waxaa laga yaabaa dadkeenu inay filayaan qof waliba gurigiisa inta albaabka lasoo garaaco in la idhaahdo waxaa tahay xildhibaankii aad dooratay baa albaabka garaacaya, waxan iyo waxanaan soo helay wixii aad ku dooratay waa kan. laakiin waxaan filayaa taa way ka duwan tahay. waxaynu keeni karnaa waxa weeye hadduu qofku dadaalo danta guud ee bulshadeeda ka wada dhaxaysa, ee caafimaad kale, ee dhakhtar kale, ee biyaha leh, ee horumarka kale ee Somalilandba leh inaynu ka qayb qaadanno. anigu waxaan ahay xildhibaan sharaxan deegaankan iyo gobolkan iyo qaranka Somaliland. haddii aan soo baxo waxaa mas-uuliyadii kaa saarantay Somaliland oo dhan. waxay kaa saaran tahay deegaankii gaarka ahay ku soo doortay, waxay kaa saaran tahay gobolka ka soo jeeda. intaasba waxaan ku dhiirigelin doonaa inaynu helno cadaalad. haddaad cadaalad heshaan waxa weeyaan wax idinka maqani ma jiro. dadka deegaanka waxaan ku dhiirigelinaya inaad igu taageertaan. mid filimaya inay maka ii diraysaan, inkastoo hadhow la isu dira hadda inaan dadka soo boobo ama xaaraantii xalaashaba inoo soo qaado. haddana sidaa la iskagama hadheen. hadhow waxa weye waxaad arki doontaa iyadoo lagu leeyahay wixii aynu xaq u lahayn iyo wax kaleba waa in la helaa. ama maxay ahayd ninkaan dooranay halkan uu joogaayo wixii la boobayo waxba kama soo qaadin. runtii ma filayna boob ii diraysaan, laakiin inu xaqeennana helo. dadka kale ee Somaliland nagula noolna xuquuqdooda dhammaystiran ay helaan. ugaasku wuxuu ka dhawaajiyey dadku wan iyo waraaba hadday noqdaan keebaynu raacayn. waxaan leeyahay wanki iyo waraabaha bani aadamka u dhexeeyo kala ilaaliye, inagu qofkii baynu noqonayna midnama noqonayn. labadoodaynu kala eegaynaa. hadday dadku wan iyo waraaba noqdaan inagu labada innaga u dhexaynayna oo waxa weye mid walba waajibkiisa tusi doona. waxaan ku soo gebagabeynayaa mahadnaq ballaaran oo dhammaan u jeedinaya aqoon-yahanka, dhallinyarada, haweenka, ummadda Somaliland ee dhammaan iska tiran ee deegaan kastaba leh ee igu soo sharaftay, igu soo kalaamiyey xafladdan inay kala soo qayb galaan. waxaan idin leeyahay insha Allah waxay noo ballanaa guul. waxaa kaloo dhiirigelinaya haddii aan halkaa ku guulaysana aan dhiirigelin doona inay dhallinyaradu soo galaan siyaasadda oo ay dadka iyagu talada u qabtaan. waayo qofku hadduu afartan jir dhaafo laba waxbaa ku soo kordha. wahsigiisu uu bataayo habeenkii 8 habeenimo gurigiisa kama soo toosin kartid hadday howlo adag kugu soo baxaan. qodobka labaad ku soo baxana waxay jecelihiisu way badataayo wuxuu ka fikiraa danihiisii gaarka ahbaa bata. caruurtu dhalay, kuwa awowga ah, kuwa adeerka ah, waxaas boqol howlahoo ku xeeran buu ka fikiraya. laakiin dhallinyaradu way ka dhiiran yihiin. heesana dalka dhalinyara xoreysay, iyagaa ingiriiskii ka xoreeyey. ilaa maalin kastoo abaabul lagu jiro ama xisbiya ha noqoto ama siyaasad ha noqotee dadka ugu badan la kiciyo xamaasadda galaawa dhalinyarada. waxaa dhalinyarada ma qiimeynaya waxyaabada waxay qiimeynayaan horusocod bay leeyihiin. horusocodku uma waa ka keenay guul iyo guuldaro labadaba. guuldarana hadduu kama jirta sida la yidhi waa khibrad iyo waa aragnimo. waxaan kusoo gebagabeynayaa runtiina intaasoo dhan idhaahda may ahayn, waayo dardaara badan baa la jeediyey. waxaa leeyahay waxaa wixii dardaara aad soo jeediseenna waan qaatay. insha Allah ilaahayna ay naga dhigay inay maartay ku dhaqaneen inagu anfaco. sidaas aan kusoo gebagabey. waxaa la xasuusiyey halkaas qodobka diiwaangelinta oo halkana hore looga sheegay. arrinta diiwaangelintu waa arrinta ugu muhiimsan
ee maanta Somaliland ka jirta sida la sheegayna muwaadinka muwaadinimada haddii xataa aad iminka aan soo baxo laakiin aad cod yar keentaa waxay tiraysaa codka keentaan ugu leekaanay marka waxaan leeyahay haddii si badan isu diiwaangelinana aniga lafteeda waan hanjabi karaa waa haddaan soo baxo haddaan sayda wax yar ku soo baxo waxaa la siinaya waxa aad saysateen baa la siinaya haddii lagu soo baxayo kala soo qaad toban lagu soo baxayo xildhibaanada Hargeysa ka soo baxay inuu toban sideed ku soo baxo oo uu ugu hooseeyo noqdo marka la qaybiyo percentage-ka la siinay maxaa ka filaysa intaas inaan la leeyahay leeynta hagoosta leeynta adna intaas aad dad wadatay intaas la siinay hadii booyada yaa la qaybinayo abaarta ay jirtay ama hadii dalka wax loo qaybinayo meesha lagu sargooyo miisaaniyada dalka laga ansixiyano baarlamaanka oo wixii xalaal ka soo lagu qaybsado wixii ka soo haray waxaan sharci ahayn wixii sharci baarlamaanka ku soo maray sharcigan waxa ku goosanaysaa bal ay maanta diiwaangelinta inta gashaan waxaan ka laga mahadnaqayaa cali aadan daahiro isagana waxaan filayaan Hargeysa wuxuu caan ka yahay TV baa ku taqaanaanee inaan saaxiib nahay oo wariyaha xirigaabo ee telefishinka Honkebel aan ku baratay inaan saaxiib nahay runtii inuu horumar wuxuu doonayay intaa isaga ay dejinay golaha xubnaha maxaa lagu weydaar kala qayb galay على ما تفصح عند الشباب إنه هذه الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.